بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan jeclahay insha allahu tacaala hadduu ila iraado horta waxaan idin sheegaa pagekeyga waa kan ahaan nero page. insha allahu tacaala hadduu ila iraado waxaan jeclahay inaan soo geliyo video ku saabsan sida languageka hadda meeshaan ku xusan oo kale in java language, SQL, SQL server, C sharp and HTML, CSS, JavaScript and so on. insha allahu tacaala ani kalaankeyga ama aan qaban karo cidii maanta wax kusoo kordhin karto maanta video soo geli kartana pagekan kuleetaba inbox ay ugu soo diri karaan cidii jecel insha Allah taala video laga faa'iideysan karo soo diri karto insha Allah taala jecelahay. Okay, hadda maxaan rabaa inaan ka hadlo lecture ku saabsan Java language. Java language macnaha waa ogna every language waxay leedahay variables. So waxaan rabaa insha Allah taala Java meeqa variable leedahay, variable si loo qeexaa. Okay, maxaa qofka inuu sameeyo habboon tahay insha Allah taala doolada. horta waxaa meesha ugu jiraan Java language Maxamed Nero, aniga ah Maxamed Nero. waxaan jeclahay insha Allah taala waxaan ognahay programming language ka Java waxaan ognahay waxay support gareysaa variables ka si markaas daatada ugu store gareyso macnaha muxuu ahay qayb kamid ah. Okay, waxaan ognahay marka waxaa loo qaybiyaa two parties oo markaas marka qofka uu rabo inuu data inuu variable inuu store gareeyo waxaan u qaybsan wax la yiraahdo primitive and complex objective. Okay, waxaan ognahay marka primitive variables ka waxaa lagu store waxa waa kuwa ugu faastisan ee waxa lagu store gareeyo memory-ga. waxaana kala dhigi karnaa waxaa jira some numbers oo small ah oo aan ku store gareyn karno macnaha muxuu ahay marka u baahanahay salahan data. Okay, waxaa ognahay kale in primitive ka waxaa kamid oo kale integer waxaa numeric-gaas muxuu yahay numeric-gaas waa numbers-kaas maxaa integer waa float, point and decimal and so on. Okay, waxaa ognahay marka in waxaa kale ku jirto waxa la yiraahdo single character. Okay, single character kaas oo meesha ku jira ognahay waxay tahay single character ma dhihi karno string. salaano kale single character ma dhihi karno string. waxaa ogaanaa marka string maxaa la string waa wax isku xiran. salaano kale Maxamed waxaa la karaa oo kale Soomaaliya waxaa la karaa oo kale salaano kale in whatever adi hadda salaano kale type is oo kale waa string. so waxaa ognahay waxay tahay single character ma dhihi karno string, laakiin markii ay one and more than one waxaan dhihi karnaa waxa waaye string. haddii hal iyo a b markay individual ay tahana waxa waaye single character aan dhihi karnaa. waxaa ogaanaa waxa la yiraahdo waxaa kale leedahay waxa la boolean, false and true. boolean waxa waaye sideedaba waxa la yiraahdo waa false and true, waa run ama been. Okay, boolean goorma isticmaalana insha Allah taala tusaalaan markaan gaarno if else conditions statement-ka markaa sameynayna boolean waa qasab markaa isticmaalana you have to inaad isbarbar dhigtid two situation aad tirahdid maanta haddii ay magaalada tusaalaan waxaan magaalada degan suppose Karachi haddii ay maanta xaaladeeda ay fiican tahay insha Allah taala waxaan rabaa suuq inaan aado, else ma aadayo xaafada iska joogaa. today haddii oo roob da'o waxaan jeclahay inaan xaafada iska joogo, hadduu roob da'i waayana waxaan rabaa inaan baxo. soo saas kale loo isticmaalaa. Okay, complex object-ka maxaa kamid ah? complex object-ka waxaa kuleyto macnaha waxa waaye waxaan dhihi karnaa complex object-ga waxaan dhihi karnaa waxa waaye waa ka duwan yahay other languageska ma lahan complex object. string marka la fiiriyo marka ku qeexeeno tusaalaan oo kale Java language waxa waaye waa symbol, laakiin markii aan isticmaalayno tusaalaan oo kale other language markii aan Java isticmaalayno waa complex objects. Okay, waxaa lahay any string value longer than single character must be waxaan dhihi karnaa store complex object. si fiican oo fahantiin malena any string value oo ka badan yahay one single character waxaa lagu store gareynaa lahay complex, not as a primitive ka marka la fiiriyo single character ka waa macnaha waa lagu keed garan karaa waa gartaa malena. Okay, waxaa ognaa marka waxaa kaloo meesha ugu muuqdo waxa la yiraahdo dates.
date value which can be waxaa dhihi karnaa interprets waxay macnaa oo isku bedelaysaa ama u translate garaysaa as a numeric value that number of the text from the particular date, but in terms of Java memory management are stored as a complex object. waxaa ognahay dates waxa waaye tusaalaan oo kale date 1 tusaalaan oo kale August numeric. So markaan isticmaalayna waxaan u xareynayna as a complex object. intaas markaan marayna waxaa jirto last option waa if and everything else. Okay, everything else waa maxay everything else? waxa waaye tusaalaan oo kale markaa rabtid inaa markaas mention garaysid ama aa rabtid inaa qeexdid any kind of tusaalaan oo kale waxaan dhahay waxaan sameynaa bank management system. I have to declare my data variable object. So I initialize tusaalaan oo kale variable in suppose integer is equal to 10, integer is equal to 9, and so on. So these kind of things I have to isticmaalo in last option. It depends you the last one. Okay, meesha marka waxaa ku ogna waxay tahay sidee baan u qeexi karnaa complex variable. Complex object wuxuu leeyahay variable, waxaan loo qeexa waxaa la yidhaha complex variable. complex variableska are waxaa la instance of class waa tusaalaha classka as a primitive ka marka aan maadaama primitive ka aan macnaha muxuu ahay okay mistake aa jiro waxa qaabka slideska aan sameeyay we have to inaan ku hormarno declaration of primitive variable. Okay, variableska primitive ka waxa u qaybsama waxaa loo declare three types. First waxa waa type data type. You have to data type. What is data type? Integer. meeshaan waxaa u jeednaa waxay tahay integer. So meeshaan iidan qalad waaye waa integer only waaye integer kaliya waaye. Okay, data type maxay tahay require waa loo baahan. data type waa maxay? waa integerkan meesha ugu jeedno integer is a data type. secondly waxay tahay variable name require. variable name require ma maxay? waxa waaye waa new variable waxaana la dhahaa variable name. Okay, initial option waxaa u baahanaa waxay tahay initial value optional. initial value optional waa suppose meeshaan waxaa ka dhigi karaa waxay tahay 10 9 11 12 13 14 15 complete. marka waxa waa statementiga waa karaa integer oo data type ah, new variable oo variable name ah, iyo the last option oo ahay initial value optionalka oo is equal to 10. So waxaan jeclaa insha Allah tacaala inta inaan ku ekeeyo next waxaan jeclaa video inaan meeshaan kasii wado hadduu ilaa raado insha Allah tacaala ilaa biidni illaahi.